haddii aad maqashay gabiley cagaaran oo qurxoon halkani indhaha iyo urta u darani waxa ay ka tirsan tahay magaalada gabiley oo waa gabileyda qarsoon daawadayaal geedkani mararka qaar waxa uu ahaan jiray geed cagaaran oo aad u qurux badan balse hadda waad arkaysaan oo waxa gebi ahaanba buux dhaafiyey oo ku ururay waa khashinka bacaha ah ee laga soo qaado magaalada gabiley oo deegaankani qurux badnaan jiray berigii hore la keeno hadda halkani hadda aan joognaa waa bartamaha godka khashinka ee magaalada gabiley dadka deegaankani oo telefishinka SBC la hadlay ayaa sheegay in ay la dhibanaayeen xashiishka halkani la keeno balse waxa ay sheegeen in khashinkii halkan la keeni jiray hadda loogu daray in la keeno saxarada laga soo qaado musqulaha magaalada gabiley oo sideedii muuqata waxa halkani ka qoyan ee halkan yaala waa saxaradii laga soo guray musqulaha magaalada gabiley oo dabadeedna waxa la noo dheeraysiiyay booda xaarsida oo xaarkii noogu shubaya ubad baa meeshii yaala ya ubadna waa laga soo qaadaya ubadna waa loo keenayaa xaarkii qarmuunkina dee taasuu noogu baxaya waxa weliba noo dheer qashinka iyo dulliga waxa noo dheer waxa suuliga magaalada ka buuxsama in halkaa banaanka dadka masaakiinta loogu soo shubo oo aan laga aasin xashiish yar aan laga saarin kamana hadli karno door baanu ka hadalnay oo naga joojiyo booyadii aan waday markaa waxaan madaxweynaha muuse biix cabdi jecelnahay waxaan ka codsananaa dooranay waxaan ka codsananaa gabileyda qarsoon inuu yimaado uu arko uu indhihiisa ku arko waxa lagu soo rogaa khashinka bacdaa u maaha bacdii waxaa lagu darrogayaa waxa biyaha magaalada suuliyaasha laga soo qaado iyo la iskaga shubaya guridiisa taqsiga ka soo duula biyihii aan bacaha noogu jiray ee bacaha ku xidhanay ayuu laga fuulayaa markaa dawladdu marna waxay leedahay karool fadhiska iska ilaasha kolla bacaha baa lagu dulsamayaa xashiishka iyo khashinka daawadayaal sida idiin muuqata waxa ay magaalada gabiley wax ka yar 2 kiiloomitir u jirtaa godka khashinka ee magaalada gabiley khashinka laga soo qaado magaaladana halkani ayaa la keenaa waxaana ay dadka deegaanku u macnaysteen arrinkaasi gabiley ka qaad oo gabiley u soo qaad bulshada xaafadda Sharaf Cali waxa ay sheegeen inay halkani tahay gabiley qarsoon isla markaasina indhaha dadka laga qariyo waxaana ay sheegeen in la caburiyo isla markaasina loo hanjabo haddii ay ka hadlaan dhibaatada uu godkani ku hayo waxaana ay ka dhawaajiyeen in marar hore la xidhxidhay bulsho deegaankani ah oo ka cawday godkan khashinka ee magaalada gabiley iyo dhibaatada uu ku hayo maadaama oo ay sheegeen godkani in aanu lahayn xayndaab weyn oo ka celiya khashinku inuu bannaanka u baxo isla markaasina waxa ay bulshadu sheegeen in godkan khashinka ee magaalada gabiley loo sameeyey deyr gaaban oo aan ka celin khashinka dibadda u baxaya markaa waxa weeyaan walaal dulmigaasaa la nagu hayaa haddaan midkayga hadlana waa la xidhaya soo maad garan gidaafadda waan ka hadalnay dabadeed waa la nagu soo baxay waa la naxidhxidhay ya waa la dhuuntay ya dabadeed inteedii kalena dee laagahan kala gallay sidii baanu annagu ku cabsoonnay dee dabadeedna sidiibu khashinkii meeshii bermel ugu noqday marka walaal waxa weeyi dee in la naga qabtaanu doonaynaa ya xashiishka laga soo raray xoola uu naga dilay xoolna saasay nooga dhammaadeen waxa weeyaan dawladdii waxay nooga qabanaysaa ma jirto waa adiga arkaya dhulkayagii siduu noqday waan ka qaxannaa in madaxweynuhu inuu noo arkaan jecelna gabileyda qarsoon inuu noo arko ayaan jecelna daawadayaal halkani waa ijaarka beertani oo sida idiin muuqata waxa dhibaato ku haya godkan khashinka oo ijaarkii beerta waad arkaysaan xashiishka ka buuxa beertiina wataa ka dambaysa dhibaato aad u badan ayuu godkan khashinku ku hayaa beeralayda ku hareeraysan ee xaafadda Sharaf Cali ee magaalada gabiley waxa dawladda aan ka codsanayaa oo cod dheer aan u gudbinayaa maxamed aamin cabdi cumar
malahay dhulkan isagu ma xukume waxaan ka codsanayaa inuu beertayada wadiga arkayo khashinkii wakaasoo beertayadu wuu galay dhibaato weyn buu godkani nagu hayaa amba godka inay naga raraan amba ay naga qabtaan waxaanay nagu soo daayeen iyo baca magaaladii buu ka soo gurayaa beerihiina wuu ku shubaya marka waxaan ka codsanaynaa maxamed aamin cumar cabdi waxaan leenahay adaa maayirkii degmada gabilaya adaa xukuma markaa wax weyn waa inaad indha gaara loo yeelataa beeraha iyagu way baabeen khashinkiina wakaasoo uu naga galay waxaan leenahay sida golaha deegaanka ee cusub waxaan idinka codsanaynaa inaad si degdega aad nooga qabataan khashinkaa godka marka madaxweynaha dalka waxaanu u sheegaynaa muuse biyaha cabdi indho gaar waa noo yeeshaa beeraladii degmada gabilaya sheekh cali ee ku hareeraysan godka xashiishka waxaanu ka cabanaynaa beerahayagii bax baa lagu bedelay daawadayaal hadda sida idiin muuqata xoolahani waxay daaqayaan waa gudaafadii khashinka lagu soo qubayey ee magaalada gabiley waxay cunayaan waa baco iyo xashiish hadda waxaa halkan jooga inankii ilaalinayay adhigan oo aanu bal wax ka weydiin doono dhibaatada ay adhigan uu ilaalinayaa ay ku qabaan gudaafadan weyn ee magaalada gabiley bal waxaad noo sheegtaa adhigan aad ilaalinayso ee halkan aad u daaq keentay bal dhibaato nooceeya ayay ku qabaan godkan khashinka weliga xanuunsada waxaa dhacda marka qaarkood in maalmaha jiilaalka oo kale meel loo geeyo la waayo oo bacahay cunaan kaaga haystaa bacday cunayaan qashinka la soo qaaday cunayaan xaarka la soo qaado biyahay cabayaan gidaafada magaalada laga soo qaado xaarka xashiishkay cunayaan dhibaato badan bay nagu haystaa godku waa gudbiye godku waa kaydiye daqsiguna waa gudbiye daacuunkaaba ka dilaaca godka geesta kale waxay codsadeen dadka halkani ku nool in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi aanu ku qancin daldalaalka iyo ubaxyada laga beeray hareeraha waddooyinka magaalada gabiley balse waxay codsadeen in uu madaxweynuhu la arko gabileyda qarsoon ee indhaha bulshada laga qariyo fariinta ujeeddada warbixinteennani ma aha mid ku socotaa dawladda hoose ee degmada gabiley oo keliya balse waa mid ku socotaa wasaaradda deegaanka wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba madaxda somalilan waxaana uu deegaankani u baahan yahay in gurmad degdega lala soo gaadho oo halkani wax laga qabto si aanay uga dilaacin cudurro hadhow dhibaato u keena bulshada deegaankani iyo guud ahaanba gobolka gabiley waa maxamed cabdi cumar maxamed udiin wararka warbaahinta s b c gobolka gabiley